السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مركلة iyo cooking with xabsa waxa waaye barnaamij loogu talagalay in lagu soo bandhigo cunto Soomaali casriyeysan haddii ahaan lahayd dhinaca caafimaadka iyo haddii ahaan lahayd maaragtay fudeedka iyo habka loo kariyay. waxaan rabnaa insha Allah cuntadeena Soomaaliga oo aan wada naqaano Soomaaliga nooga baxdo qudaarta qaar inaan maaragtay soo bandhigno si maaragtay caafimaadka u fiican ilmahana aan jeclaysiino waxyaabaha hidaha iyo dhaqankooda because qofka markuu cuntadiisa yaqaano uu dhaqankiisana baran karaa. marka insha Allah daawada insha Allah waa ka heli doontaan waxaan naga fiirsan kartaan channelkeena YouTube-ka waxyaabo badan oo maaragtay kala duwan ku jira caafimaadkaaga u fiican fudud ilmahaaga aad la sameyn kartid. maanta marka maxaan sameynaynaa rooti aniga aan maaragtay aan alifay kariyay oo aan ka sameeyay qudaarta aad arki doontaan iyo maaragtay bur caafimaadkaaga u fiican iyo maaragtay waxyaabo kale oo kala duwan aad u fudud qof kasta uu sameyn karo. marka insha Allah waxyaabahan oo dhan buugayga ay ku soo bixi doonaan insha Allah meelaha maaragtay aad ka arki doontaan ka iibsan doontaan mustaqbalka haddii Ilaahay yiraahdo in goolasha aan tiigsanayno ay ku jirtaa haddii Ilaahay yiraahdo mahadsantihiin. بسم الله الرحمن الرحيم. qudaarteena hadda aan diyaarsanayna oo qudaartan waxaa la dhahaa Brussels sprouts. haddii aadan haysan tan maaragtay waxaa isticmaali kartaa bedelkeeda cabbage half cabbage qaybtaas laga jaraa oo adagoo qaybta dambe ah markastaba qolofta kore ugu horeysana waa laga fiiqaa marka dhaqidid kadib loo fiiqaa. marka aniga mashiin aan isticmaalayaa maanta aan ku jarjari doona yaryarayn doono mindidana waa ku yaryaraysan kartaa iyo waxaa isticmaalayaa zucchinigaas hore gadaalan ka jaraa marka mashiinkaan dhex gelinayaa mashiinkaas yaryaraynayo wuxuu ka dhigayaa sida basasha maaragtay markii sanduuska lagu daraayo kale sida loo yaryareeyo sidaas size-kaasaan ka rabaa cabirka saas waaye insha Allah. marka qudaartan haddaa magacyada af Soomaali ku taqaanaa insha Allah noo soo gudbiya waxaan idinka faa'iideysanay. basal caleentaas waa wada naqaanaa basashaas caleenta aan ku darsanayaa insha Allah rooti ma insha Allah qatar ku soo baxaya iyo zaytuunka saliidda zaytuunka miraha oo saliidda zaytuunka la dhahaa laga sameeyo intaasaan shiidanayaa tamadmadow ama mid cagaarka midii markaas aad haysato wakaasa ayadoo ii jarjar diyaar ii ah baaquligaasaan ku shubanayaa marka waxa aan shiito dhan ka dhawaan rootiga si aan ugu darsado. haddana waxaan jarjaranayaa basashaydii iyo maaragtay kaabishkii yaryaraa waxaan shiidanaynaa Brussels sprouts-keeni oo kii kaabishka u ekaa kaabisha Soomaaliya buuxo waa ogtihiin. marka waxayna dhan waan isku shiidanay baaquligaasaan ku shubanaa haddana zucchinigaan shiidaynaa zucchiniga markaan shiido asagana saxankaasaan ku shubanaynaa markaas rootiga hawshiisaan galaynaa markaana markaas rootigii aan haddana isku darsanaynaa oo 2 qaado qamiir ah koob biyo ah aan ku darsanaynaa qamiirkeeni half a cup of sugar oo sokor ah koob barkiis oo sokor ah heel yar oo shiidan qorfo shiidan dhadhanku aad u fiicnaanaya cusbo yaroo maaragtay qaadada yarta ah burkaas waxaan ku dhex daray burkii madoobaa waaye oo waxaan ku dhex daray flax seeds aan ku dhex daray meeshay ku qoran tahay insha Allah burkii aan ku dhex qasay haddana waa tan qudaartii aan ku dhex darayaa waxa dhan aan marka isku shiidayaa hal mar haaf caano ah iyo saliid iyo gadaal aan uga dari doonaa laakiin hadda xabadaas ukunta aan ku darayaa labadaas xabo
gacantana waa ku qasan kartaa, mashiin inaa haysatin muhiim ma ahan. koob barkiisa oo saliidda olyoliivada ahaan ku daray. waxaas marka oo maaragtay jiijidka qoyaanka ka dhigaayo koob haafkiisa caano ah. burka markaan hore waan jilciyaa, marka dambeeta marka aan bur kala gadaal uga darayaa si uu maaragtay u adkaado. hadhow marka kicidda ay ka sahlaysaa haddaa waxyaabaha burka laga sameeyo dhan aan sameynayo haddaa aragtaan, marka hore wax jilicsanaan ka dhigaa, marka dambeeta marka burkaan gadaal uga daraa, markaas softi uu kuu noqonayaa burka insha allah. waxaas marka burka jiidjiidaayo ka dhigaayo waxaa waaye flaxseedka aan ku daray. hadhowna intaasna rootigaan korka uga daadin doonaa insha allah. marka aaday u fiican tahay, caafimaadka u fiican tahay, waxyaabo badan faa'iidooyin badan bay leedahay. marka rootiga aan ku dhex daray, haddana birtii baan waxaan marsanayaa saliidda badharkaas, subagaasaan marsanayaa. burkaas yaraan ku bibitiye waa ka hurgufayaa si aysan rootiga uusa iiga dhegin. rootigaan markaa samaynayso xoogaa yar saliidah gacmaha intaa marsato kaagama dhegaayo. haddaa intaad burka intaa mariso saxanka aad maaragtay saliid intaa mariso haddana bur yar ku bibitiso, waxba kaagama dhegaayo birta insha allah. marka sidaasaa u dhigdhiganaysaa. birta adiga markaas aa haysato ku samayso, laakiin aniga labadan nooc oo biraan haystaa aan ku samaystaa. midana waa keega tii loogu talagalay, midda kaleetana waaba tii rootiga loogu talagalay. marka faraha burka hadduu saan oo kale uu noqdo insha allah, faraha saliid yar gacmaha wax yaroo saliida marsado si aysan aad idinku dhegdhegin. saliiddaas olyoliivada wax yar marinayaa gacanta. rootigan maasha allah aan ku dhahay dool shacab uu kusoo baxay. sidiisaa ma aragtay aa u cuni kartaa, ama maraq markaas wixii aa haysato aad ku cuni kartaa. khudaartaas badanaa lagu daray, bur madowaa lagu sameeyey, ma aragtay mid aad dareemaysa maahan gilti markaa cunto oo maaragtay burcad maahan. waa ujeedeen waxyaabahanna korkaa looga shubayaa, waa xabata sawdadii, waa sisintii, waa flaxseedkii, iyo intaas kaliya waa iyo maaragtay sunflower seed. marka waxaasaa korka uga shubaysaa rootiga, waana qurxinayaa, dhadhankana aad u fiicnaynaya. rootigii oo noo soo maaragtay kacay wakaasaa 25 daqiiqo ilaa 30 daqiiqaan sugay. quruxda waa ujeedaan. haddana waxaan gelinaa foornada 20 daqiiqo ilaa 25 daqiiqo, waxay ku xiran tahay adiga ovenka aa haysato. wakaasaa asagoo soo baxa qurux badan, faraha isgoosanaysa ayaan ku leeyahay. intaasoo qudaara haddaa fadhiisato inaad cunin baa laga yaabaa. marka insha allah baroobeeya, subscribe gareeya youtube channelkeena si aa u aragtaan waxyaabaha cusub oo aan idiin soo samayn doono. rootigii wakaasaa asoo si fudud kusoo baxay. ujeedaan maasha allah. waxaa haysato maalintaas ku cun. fudaydka doolsho aa moodaa waana rooti aad healthy u ah, caafimaadkaaga u fiican. marka wakaasaa koriga hoosba ka gudubtay. quruxda kii kaleetana wakaasaa. markaan kala jaro fiiriya waa ujeedaan sida ma aragtay uu bushbushiyu doolsho u yahay, u guduudan yahay kor iyo hoosba. foornada 350 aa geynaysaa. haddaa yurub iyo meelahaas joogtana 150 insha allah. marka wakaas sidaas fududu u kala go-aayaa. wakaas iska fiirihe marka baroobeeya saliid iyo waxaa haysataan maaragtay. aniga vinegar iyo waxaan ku jeclahay iyo olyoliiva intaan isku daro. rootiga markuu kulul yahay aaday ugu macaan tahay. wakaasaa vinegar iyo olyoliivadaas markaa isku dartid ood ku daardaaratid. maqaayadaha talyaaniga markii la tago waa tamiiska lasoo saaro rootiga aad iska qaban karin, laakiin kaas wuxuu maaragtay kan uga duwan yahay. kaas waa rooti cad oo maaragtay saas kuguma sii fiicna.
subscribe gareeya mar labaad si aad u aragtaan waxyaabaha cusub oo idiin soo wadno iyo maraqyada aan soo geliyay meesha oo maaragtay aad halkiga u fiicanna insha Allah fiirsada maraqan iyo rootigaas waa isku fiican yihiin insha Allah khayr idin rajeynaya